midowga Afrika ayaa u magacaabay madaxweynihii hore waddanka Nigeria Olusegun Obasanjo inuu noqdo wakiilka sare ee gobolka Geeska Afrika. Muuse Faki Mohamed oo ah gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in go'aankan uu qayb ka yahay dadaalka midowga Afrika ee horumarinta nabadda, amniga, xasiloonida iyo wadahadalka siyaasadeed ee dhammaan gobolka Geeska Afrika. Si gaar ah wakiilka sare wuxuu xoojin doonaa wada shaqaynta dhammaan jilayaasha siyaasadeed ay khusayso iyo daneeyayaasha gobolka si loo helo nabad waarta iyo xasilooni ka jirta Geeska Afrika ayaa uu yiri Muuse Faki Mohamed. Hogaamiyihii hore ee Nigeria wuxuu la imanayaa waayo-aragnimo siyaasadeed oo aad u hodan ah iyo aqoonsi aan la taaban karin oo ay ka go'an tahay fikradda sare ee Pan-Africanism iyo isdhexgalka gobolka iyo iskaashiga iyo sidoo kale aqoon qoto dheer oo ku saabsan xaaladda hadda ka jirta Geeska Afrika ayaa lagu yiri bayaankani. Magacaabistan cusub ayaa imanaysa iyadoo gobolka Geeska Afrika aan xasiloonayn ay ka jiraan colaado iyo dhibaatooyin. Dagaal sokeeye oo socda 9 bilood oo ka socda gobolka Tigray ee Itoobiya ayaa ku fiday gobolada kale dalkaasi. Magacaabista Obasanjo ayaa sidoo kale imanaysa iyadoo Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ku guuldareysteen inay yareeyaan kororka cusub ee kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab. Wuxuu ku dhashay 5tii bishii Maarch sanadii 1977 waddanka Nigeria gaar ahaan koonfur galbeed ee waddankaasi. Obasanjo wuxuu madaxweyne ka noqday Nigeria oo ah waddanka ugu dadka badan Afrika laga soo bilaabo 1999 ilaa 2007. Mr. Obasanjo ayaa sidoo kale ku lug lahaa dadaalada dhexdhexaadinta caalamiga ah ee Angola, Burundi, Namibia, Mozambique iyo Koonfur Afrika. Sanadii 2008 xogayihii guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa u magacaabay Mr. Obasanjo inuu noqdo ereygiisa gaarka ah ee harooyinka waaweyn halkaas oo uu qayb weyn ka qaatay dadaalada dhexdhexaadinta ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. Rashid Barcad, Ariel TV.